السلام عليكم مركز سوري وذا أصحاب تقييمها بدن وكورس كيني تحرها كوك بوك يعشر كيني لبي تمناد إنه 10 دي هوري كسارنا وحيوان فرا بدن فضلا صودا و10 دي هوري 10 كان لبي تمناد وحاينو كيك دونا وحلو يقانو creating a purchase order oo macnaheedu yahay marka aad rabtid alaabtii aad macaamiishada ama customerskaaga aad ka iibin lahayd qaabkii aad ku heli lahayd laba qaab baa dabcan jira waa inaad alaabtii on cash ama inaad lacag kusoo qaadatid oo aad lacagtii iska bixisid oo hand to hand iyo in aad alaabtii soo deematid kadibna hadhowto lacagtaad iska bixisid ama biilashii lagu soo dalaco marka waxaan ka horreyn doonaa creating a purchase order sida dalab loo sameeyo oo funderka ama supplierka aad ku xiran tahay aad alaabtii aad kasoo deemato aad kasoo qaadato haddaba barnaamijkiina halkan inoo yaala si aan dalab u sameyno laba meelood waa tegi karnaa inaan tagno menuga funder menu kadibna aan nano create purchase order oo aan dalab sameyno ima inaan tagno waxa loo yaqaano halkan home page-keena purchase order aan dalbano kadib markaan daaqadan ku dhufano halkan waxaan ku qori doonaa funderka magaciisa tusaale ahaan waxaa jiray haddaan eegno funder center aan tagno waxaa jiray kuwa inoo diiwaan gashanaa ama funders inoo diiwaan gashanaa waxaa kamid ah kamil oo kala kamid ahaa dabcan tusaale ahaan haddii kale halkan aad iskaga qoraysa adigu funderka sida loo soo diiwaan geliya waan soo aragnay kamil general trading company oo kale tusaale ahaan ayaynu qaadanaynaa marka iminka funder ma yaqaano waxaan leenahay iminka baro halkan waxaad ku qoraysaa haddii aad isticmaashid book receipt aad ku qorto deynta ama waxyaabaha adigu aad soo deematid halkan date ka dalban doonto halkan aad ku qori doonto wax loo yaqaano items kii inoo diiwaan gashanaa itemka loo yaqaano maxay beris oo kale beris waa markaa aan dalbanana markaan tagno list item list halkan wax itemskan waxay ahaayeen waxa loo yaqaano totalkooda 0 baan just waan diiwaan gelinay maanta waxaan u baahanahay maxay in aan helno itemskii aan helno okay quantity ga imsaan u baahanahay $20 weeye quantity ga imsaan u baahanahay waxaan u baahanahay 30 kiish waan u baahanahay 30 kiish oo min $20 oo imsa $600 sababta waxaan u baahanahay waxa loo yaqaano telephone ama iPhone baan u baahanahay tusaale ahaan iPhone iminka ma aqaan buu ku leeyahay waxaan leenahay baro kadib waxaan leenahay waa inventory parts waxyaabaha waan kasoo hadalnay descriptionkiisa waad raacin kartaa waxyaabahaas oo dhan waan soo sheegnay fadlan ku laabo muuqaaladooda coostku waa imisa waxaan leenahay 450 buu nagu fadhiya inaguna maxaan siin doonaa 510 baan siin doonaa okay prefer funderkan waxaan leenahay waxaan kasoo loo teginaya kamil general trading company hadhow marka la iibin wax ku dhacay la yaqaano akoonka loo yaqaano sales okay kuwan waxba ka taamayno waxaan leenahay okay halkan waxaan leenahay close kadibna quantity waxaan u baahanahay laba xabo aan u baahanahay laba xabo min 450 ah waa 5400 iyo 5400 weeye 12 xabo ka dhigay waxaan leenahay laba xabo ayaan u baahanahay kadibna imisa waa $900 marka $600 oo ah beris oo ah 20 xabo min $30 waa $600 laba xabo iPhone oo midkii uu yahay $450 totalka itemskaasi ay ku fadhiyaan waxay $1500 kadibna haddii aad u baahatid dalab labaad inaad sameysid save and new aad leedahay haddii kale save and close ayaad leedahay iminka maxaa dhacay wax isbedela systemkeeni kuma dhicin wax items ah oo aynu helnay ma jirto wax deyn ah oo laynagu soo dalacayna ma jirto sababtoo ah kaliya waxaan sameynay purchase dalab ayaan sameynay haddaba waxaan sameyn doonaa receive items in alaabtii aan wani soo gaadhay oo aan alaabtii aan receive garayno marka waa meelood waa tegi karta inaad tiraahdo funder kadibna aad tiraahdo maxay receive items tusaale ahaan waad sameyn kartaa marka alaabta markay ku timaado laba qodob baad sameyn kartaa inaad tiraahid adoo home page-kaaga jooga receive inventory with bill tusaale ahaan alaabta waa item oo ula socdo maxay biilkii ama warqadii sheegi jirta waxa loo yaqaano itemskani inta ay yihiin waxa loo yaqaano inta ay kugu fadhiyaan ama inta ay yihiin ama receive inventory without bill alaabtii uusan wax biil la socon
inaad receive garaysid oo aad hadhowto biilasha dib ka dilacday. Marka kan dib inaan ka isticmaali doona waxaan leenahay receive inventory with bill. Okay, haddaba ayaan ka suganay dalabka, waxaan ka suganay Kamil baan ka suganay. Marka Kamil markaas ugu dhufano haddii uu dalab jirinaysa ku sheegaya, haddii uusan jirinaysa ku sheegaya. Marka wuxuu ku leeyahay open purchase orders exist for this vendor. Do you want to receive against one or more of these orders? Haa, waan u baahanahay waan leenahay. Kadibna halkan ayaan tigta siinanaa waa dalabkii ugu horeeyay waxaan leenahay okay. Automatically marka halkan ayuu ugu soo shubaya waxa loo yaqaano waa kuwan bariis iyo iPhone $1,500. waxaan leenahay save and close. Okay, iminka maxaa dhacaya? Iminka waxaa dhacaya waxa loo yaqaano, waxa soo kordhaya account loo yaqaano accounts payable oo ku jirta $1,500 ayna u leedahay Kamil. sidoo kale waxaa dhici doona waxa isbedel kordhi doona alaabteeni. tusaale ahaan iminka hadaynu eegno iPhone, waa kan iPhone baa soo kordhay, kadibna waa imisa waa 2 xabo, xabadii waa imisa aan siin doonaa inagu $510. okay, laba jeer taariikhi waxaad eegi kartaa detailskiisa ayaad eegi kartaa. tusaale ahaan beri Soomaali markaan eegno waa inventory waa sales waa 3 xabo, xabadii waa imisa waa $25. haddaba aan tagno report, kadibna aan ka mina financial anano balance sheet standard. marka hadda eegtaan khasnada waxaan ugu jira $1,500, tabshiil waxaan ugu jira $1,000, inventory assetkeenu waa $1,500. haddaan eegno waan saa u riixnay waa accounts payable, deyn ahaan bay nagu soo galeen. deynta la nagu leeyahay waxa weeye waa $1,500. laba jeer haddaan riixno yaa nagu le waxaan ugu le Kamil General. alright, hantiyaashuna waxa ay leeyihiin hanti dhan $2,500. marka $2,500 iyo $1,500 marka la isku daro waa $4,000. hantida total asset commission yaalana waa $4,000. marka waa qaabka ugu fudud ee aad alaabta u dalban karto, waliba deyn ahaan aad ugu dalban karto. insha Allah dib baan keegi doonaa qaabka loo bixiyo waxa loo yaqaano deynta ama lacagta.